wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu baryahanba ku sugnaa gobolada bariga gaar ahaan gobolka Sool mudane Sahal Maxamed Jaamac وهي قدوميها قبل كسول عبد القني محمود شيره ما يركض دقمة الله سبحانه عبد العزيز حسين تاروله يقولوا مسؤولين توسعر دقاديت كأيام ما أنتوا ببحي ودوين كردن كبرقة كقبة قال مقال الله سبحانه كواساي وحيلو سوق جارسيين روب كل حد كلا كداي قبل كسول وسير كيوفتي سياسين دي ودوين كاسي يسقو عمر كسي دولة دوسين يولي بدت ككل قن جودهم بقبل كسول إن إسكا كاشان سيدي أي قرم دق وقيب قادن لهاين ودوين كاسي وقرنا وحال كاسي كهالي أو 40 كاسي يسدوا وسارد هرمانين تجديد كيولي وما يركض ماذا لا صحنات قاضي سيدادو أركتان إن إسلامات شقد عنو قبل منو سدك دقة وحقوق قبلنا وسيركون عمره ويمايركو عاومات آدو حقوق كجيسنا يو شقات ولده قرب المدن كينيا وادنا أركتان مضاد طيب السوق تاعي بعد شوقنا وندد مراجع ساد لينا كاركتان وندد وي قاضي ساكن صوب وقني أنا يصير كي بريساب كيو سدوها waxaa u baahan tahay shaqo degdega kulay maalmaha soo socdana shaqo degdega baan ka bilaabaynaa dhiig joojimaan ku sii sameeynaa hadii la hadmo si khatartu inta aanay uga badan wasiir insha Allah ilaahay uu nagu guulay gudoomiyaha gobolka Sool mudane Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa sheegay in wadooyinka ay wax badan tarayaan loona baahan yahay in kala daba qabto maanta waxaanu u nimid inaan wadadii maraaga oo ah runtii wada halbowle ah oo ah wadada isku xidha bari ilaa iyo Puntland iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliyaba oo wada halbowle ah oo maraaga ah oo barta controlka la saxnada dhinaca bari looga baxa ah oo ah meesha ganacsatada ugu badan ilaa heer federaal ilaa cid walba ay isticmaasho ilaa iyo Soomaaliya Somaliland wadada isku xidha halkan oo ah meeshan oo ah in wadadii gabi ahaanba ay hoosta ka qodantay ayna u harsantahay kaliya in gidaarkii soo roqo runtii ilaahay waxaan ka baray waxaan doonayaa hawsha degdeg in uu madam wasiirkiina joogo in aan waqtiba la siin time la siin hawshan inta ma qaadan karto imika hadii gawaar soo marto oo baabuurtii tanka weyn soo marto way go'aysaa si emergency la doonayo meeshan wax looga qabto runtii de tan oo kale waxay u baahan tahay isku tashi degdeg iyo gacmood jir wax ku gooyaan baa la dhigay waxyaabo emergency ah ee aan dawladda u asaasanahay ay u sameysanahay weeye in la sugin meeshan waa meel halbowle ah waa xaruntii taliska ciidanka militariga ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland baan taaganahay maanta taliska guud ee aaga bari baynu joognaa waa meesha ugu halbowlaha badan maanta marka halka in degdeg loo sameeyo mudane wasiir waxaan ka codsanaynaa anagoo maamulka gobolka Sool iyo kii degmada dhamaantii iska xashanana in hawshan degdeg aad gacan degdeg naga siisaan oo wasaaradahan aad degdeg wax noola qabataan amar ku bixisaan in maanta la bilaabo anaguna wixii aanu guddiga dhishas ka xidhno wixii hiliyo hoob aanu hayno aanu garab dhigno salaamti wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isagu sheegay in wadooyinka waliba ay ugu muhiimsan yihiin wadooyinka bariga ka xiga magaalada Laascaanood ee isku xidha dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya kuwaas oo ay mareen gaadiid tiro badan iyo waliba u kala goosha dalkaasi waa meel u baahan wax ka taro annagu ilaa ciidkii burca ayaan joognay ilaa Laascaanood waxaanu noo soo kicitana waxay ahayd wadooyinkan inaan u kuurgalo xaaladooda injineeradii iyo maareeyay wala socdeen ugu shalay noqdeen maanta joogay oo xaggan u soo gudbay awal tiyaari cadeeye iyo tii dhidinka ayay ahayd tanna waa maraagi waxa moodaa in 60 mitir go'an tahay hoosna xaggan kilomitir buu sii qodotaay gawaarida xagga ka marto oo la soo dhacaysa kuwa weyn kuwa yar iska mari karaan marka insha Allah sida maayarkay barasab ku sheegeen in iyada aan cidna lala sugin wax ka qabano ka dawlad ahaan gobolada barigu dawladdu wax ka eegaan iyagu dantooda waxba kama qabsadaan gobolada kale ee Soomaaliland ganacsatadooda wax garadkooda ayaa dalkooda u quura hantida ay haystaan ninka ganacsatada maanta ugu badan halka wax u maraan
oo ama bari ha uga yimaadeen ama bogax uga yimaadeen ka ganacsada inuu 60 mitir maanta ragga waaweyn oo dee waddanka ku haysta inay maanta inta qabtaan iyaga waajib ku tahay laano lacagtii sameeyeen waxay ka sameeyeen waddada ay maraan reer Sool waxaan leeyahay warma reyaalo meeshan cidna dawladna ku eeginina cid kale ka suuqinina maamulka gobolka iyo degmada kala qayb qaataan oo ka qayb qaadanaa insha Allah meelaha aan u baahnayn in wax weyn la keeno sida kuwaan shishoon soo balan qaadinayno qalabkii keenayno laakiin tani hadeerta wax la suuqi karo ma ahayn cid 2 mitir oo daloolka in la soo bixiyo ciid san gawaaridu eeloo duunayo loo baahayay marka reer Sool wax kala qabta maamulka salaamu alaykum وبرخد عمر أحمد ربانتا دولة جمهورية الصوماليلان لاسعانود